madrasada Daarul Qur'aan dunidu way hormartoo doorkii dhawaan ayay ahayd markii xariga laga jaray mu'asasada Daarul Qur'aan wal Culum isla markaana waxa socday boroseeska iyo dib u howlgelinta madrasada Daarul Qur'aan wal Culum Sheekh Maxamuud Abdul Cariif oo ah aasaasaha madrasada Daarul Qur'aan wal Culum ayaa ugu bishaariyay ummadda Soomaaliyeed meel kasta dunida dacaladeeda jooga in ay bilaabatay hawsha madrasada oo in midda ay wadeen hawsheeda Sheekh Maxamuud Abdul Cariif ayaa ugu baaqay dadka reer Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha hoose in ay si toos ah u keensan karaan ardada iyo sidoo kale caruurta wax la barayo ayagoo maraya shuruudaha ay madrasadu dejisay Sheekh Cariif ayaa sheegay in ay si wacan u soo dhaweyn doonaan dadka halkaasi imaanaya oo sheegay in ay qaybo hor ah ku horri doonaan madrasada mu'asasada weyn weeye waxay kulminaysaa dhowr culuuma ayay kulminaysaa waxaa lagu baranayaa quraanka kariimka ah oo ardayda la xifdisiinayo qadar oo gaaraya 2 sano iyo waxaan ka badnaynin ayaan doonaynaa inuu ilmuhu ay noqdaan xufaad ay quraanka ku noqdaan hadda galaaskan aynu joogno wuxuu ka mid yahay galaasyada boardingka ah oo ardadu yaryarka ay ku baranayso quraanka way xifdinayaan ilaahay hadduu yiraahdo waxay kaloo baranayaan culumta islaamka ayay baranayaan tarbiyada ayay baranayaan tarbiyatul islaamiyya baranayaan waxay baranayaan maadooyinka nidaamiga ah oo dugsida maaragtay hoose dhexe iyo sare waxay u gudbi doonaan insha Allah ta'ala oo muassasadan ay kulmisaa oo ka kooban jaamacad oo takhasusaad fara badan iska leh ayay u gudbi doonaan caruurtan garbaheena taagan hadda aad arkaysaan insha Allah ta'ala hadda galaaskan iyo galaasyo kale inta ku jirta iyo mustaqbalka soo socda waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay maaragtay Soomaali ay maaragtay wax badan ay ku nacfi doonaan oo wax wanaagsan awlaadoodu ay bara doonaan adduunyo aakhiraba inay faa'iidi doonaan dalka dibadiisa iyo gudihiisa ayay u furan tahay waxaa jooga dad gobolada ka yimiday dad maaragtay banaadir degan dad koonfurta degan oo dhan mu'asasadu marka waxa weeye saasay mu'asasad weyn u balaaran ay tahay waxay lahaa doontaa qaybta culumta islaamka lagu barto oo maaragtay xalqada aanu maaragtay markeena horeba qaanu ka soo baxnay oo kitaabada cilmiga loogu akhriyo dadka waaweyn ayay yeelan doontaa qayb maaragtay dumarka ah gaar ahaan gabdhaha ayay yeelan doontaa welina waa hawshaas waa ay socotaa marka waxa kaliya oo aan maaragtay halkaan soo istaagnay inay maaragtay dadka Soomaaliyeed ay nala wadaagaan oo nala arkaan oo qofkii doonaya inuu maaragtay meeshan xaaje uu ka yeesho awlaadiisa uu keeno si uu maaragtay uga faa'iideysto darajada tan iyo maqaamkan mu'asasada ay leedahay waxaan leenahay maaragtay caruurtan maaragtay ilaahay idinkiisa waalidadoodii way keeneen meel walba laga keenay haata waxa weeye maaragtay isqoridii way socotaa weli ma aysan buuxsamin hadda waxaa diyaar loo yahay in la qabto dhowr boqol la qabto ilaa 300 400 wixii intaas ka soo harana waxa weeye ayagana waa loo siyaadi doonaa hadda waxaanu haysanaa dhul balaaran ayaanu haysanaa oo wax kasta lagu waasici karo marka waxaan maaragtay aan u qabanay barnaamijkan ama aan maaragtay dadka u tusaynaa baraha bulshada inay ka faa'iideystaan ay ogaadaan waxa meeshan ka jira waxaan rajayn doonaa insha Allah ta'ala maadaama annaga waxaanu ilaahay dar Allah u qabanaynaa hawshan ilaahay daraadiisay naga tahay maadaama kitaabada quraanka cilmiga la akhrin jiray quraanka dadka la bari jiray in haddana qaab maaragtay casriyeysan dadkii diinta loo baro waxay leedahay muallimiin badan ay leedahay aad iyo aad maaragtay aqoon u leh oo jaamiciyiin hadda xataa iyagoo quraanka dadka barayay jaamiciyiin shahaadooyin fara badan haystaan insha Allah ta'ala dadka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa inay maaragtay guul ay u tahay iyadoo cid kasta oo Soomaaliyeed lagu soo dhaweeyahay dalka ku noolaato dibadda ku noolaato cid walba ay u furan tahay cid ka reeban oo Soomaaliyeed meeshan ma jirto waa wax mujtamaca dhan u dhaxeeya wixii maaragtay faahfaahin ah oo shuruudo ah oo kale oo waxbarashada iyo waalidka iyo wax walba ku tacaluqana xafiis weynaa meeshan ku yaalo maamul iska halkaas la imaanaya kaas baa laga faa'iideysan doonaa
إن شاء الله تعالى أنت سنكسو كوبينا عد والبوي فهم يساوي إلا يداهدو أنت سنكسو كوبينا هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.